السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaasheena qiimaha badan ee inagu xiran kanaalkeena umada ee YouTube. Haddaad ku cusub tahay daawade inagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe kadibna fura gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada waxtarka leh ee lagu baahiyo kanaalka. Ana ka hilmaamin muuqaalka hadduu ku cajib geliyo inay like saartid. Mahadsanid. Aynu gudagalno muuqaalkeena maanta. Muuqaalka maanta waa mid aad u xiiso iyo layaab badan daawasho wacan. Kaamiradaha wax duuba kuna xiran guriyaha hortooda ayaa waxay duubtay ninkani oo ka cararaya eegan yariiska ah markuu bursaday. Waxaa la yaab leh in ninkani uu cararay oo ka koray gaariga korkiisa. mid ka mid ah wadooyinka dalka Ruushka kaamarad ku dhagneed ayaa waxa ay duubtay ninkani oo gadgadaal u socda oo fiirinaya gabar uu quruxdeeda u la dhacay laakiin uu kufay oo dhulka ayuu ku dhacay. barmiilka qashinka gabadhani waxay isku dayeysay inay barmiilka geyso meeshiisa laakiin dhulka ayaa taraarax ah oo waa ay simbararaxoonaysaa. darawalka baabuurkani kaxeynaya ma ahayn mid baabuurka ku baakimay meesha ku haboon. si lama filaan ah ayaa waxa ka fagtay gaarigii oo waxa uu ku dhuftay gawaari meesha ninkani waxa uu rabay inuu galo iridan dhalada ah intaysan xirmin ka hor laakiin mootadii uu wadayay ayaa irida jibisay. baabuurka qashinka marwadani waxay iska fadhisay kursiga laakiin darawalka oo doonaya inuu barmiilka qashinka ka nadiifiyo ama ka faarujiyo ayaa waxa hal mar isla qaadmay kursigii iyo barmiilkii oo marwadii dhulka ayay ku dhacday. buutiga yar weligaaga ma ugu timid baabuurka gudihiis asagoo bahal ku jira. ninkan wuxuu furay albaabka gaariga waxaana ka soo baxay buutiga. ninkan wuu cabsaday oo bahalka ayuu ka cararay baalkiina asiga wuu u cararay. wax la yaab leh oo aad markaada ugu horeysa aad arkayso ari cabaya sigaar oo xitaa xoolaha qaar waa la yaab ah. daanyeerkan sidoo kale waxa uu cabayaa sigaar laakiin waxa la yaab leh sida uu u cabayo sigaarka. cajiib haddaysan kaamaradaha duubi lahayn maadan rumaysan lahayn daawade. cunugan asigoo iska baashaalaya ayaa waxaa soo bursada diiq asaga waa uu ka cararay. kabacdi bursi dheer ah waxaa ka celisay hooyadiis. barkada biyaha ninkan waxa uu ahaa mid degdegsan oo ku socda si socod boobsiis ah hoteelkani gudihiis laakiin waxa uu hilmaamay in ay meeshani tahay barkad. waa uu ku dhaxdhacay barkadii biyaha ahayd
gabadhani waxay ka soo degtay gaariga waxayna soo aaday dhanka iyo gurigeeda. markii ay furaysa albaabka ayaa waxa ay timid dabeel aad u xoog badan oo gabadhii albaabka qaaday. jabitaanka albaabka, ninkan waxa uu si qaldan u riixay albaabkani dhalada ka samaysan oo albaabkii meesha ayuu ku burburay. agabka jirdhiska, gabadhani waxay ku almiiteysanaysay agabkan, laakiin agabkan ma ahayn mid si sax ah u fadhiya oo gadgadaal bay ula gadoontay, waxaana caawiyay ninkan. darawal barbaratoy ah, daawo siduu u burburiyay wixii ku hareeraysanaa. ninkan waxaa baaris ugu jirta askar taas oo baaraysa, laakiin asiga saqafka kore ee gaariga ayuu kaga dhuuntay, waa ayna arki waayeen ninkani. lo'dan oo wadada iska maraysa ayaa waxa ay aragtay gaari xoog ku socda oo waa ay ka carartay. hadduu darawalka bareeg hawan lahayn, lo'da waa uu dardari lahaa. wiilkan waxa uu si qaldan ugu fadhiistay kursi uu diyaarsaday aabihiis si uu ugu fadhiisto, laakiin aabihiis dhulka ayuu ku dhacay markuu kursiga ku fadhiisan rabay. duufaan ka yaabisay dadkii ka shaqaynayay iyo kuwii imaaday maxkamadani. duufaantan ayaa burburisay albaabkii iyo kuraastii maxkamadani. hadba daawade inala wadaag qaybta hoose ee faalooyinka qaybtii adiga kula cajiibsaneed. hana ka hilmaamin muuqaalka hadduu ku cajiibgeliyo inaad like saartid oona la sii wadaagtid asxaabtaada adigoo ku sheer garaynaya. waxaan mar labaad xasuusinayaa asxaabta weli inagu soo biirin inay inagu soo biirto oo kanaalka ay rukuntaan. waad mahadsantihiin daawadayaasheena qiimaha badan ee na soo gaaray bardhamaadka muuqaalkeena maanta. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.